xaflad ayaa loo sameeyay jidkii ugu horeeyay laamiga ee laga dhigo wadada u dhaxaysa jaamacadda Camuud iyo magaalada Boorama taasi oo dhawaan laga soo bilaabay dhanka jaamacadda Camuud isla markaasina uu socdo dhamaystirka jidkaasi xafladda maanta loo sameeyay ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka jaamacadda Camuud iyo boorka jaamacadda Camuud madaxda hay'adda Camuud Foundation maayirka magaalada Hargeysa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Soomaaliland iyo marti sharaf kale oo fara badan xafladdan oo lagu qabtay gudaha jaamacadda Camuud ayaa ugu horeyn gudoomiyaha jaamacadda Camuud Professor Suleymaan Axmed Guuleed ka warramay faa'iidooyinka ay wadadani u leedahay jaamacadda Camuud iyo guud ahaan bulshada waxbarashada jecel gudoomiyaha oo ku sugnaa goobta shaqada ee laga wado dhismaha wadada ayaa u mahad ceshay dadkii ka qayb qaatay dhismaha jidkaasi aad ku mahad celinaa imaatinka aad nagu soo sharifteen mucaawanadii iyo imaatinkiina halkanba taariikhayna ka wada qaabgelayna haddaan intusaiya jidkaasi wuxuu noo furayaa in ardayda ku jirta saddex laabkeed aan qaadano iyadoon gaadiidaanaan kordhin waa kow laba faasilidkan camuudee faraha badan leh waxa gelin hore baan isticmaalnaa gelin hore keliya ayaan isticmaalnaa jidkan wuxuu noo soo gelinay oo duhurka ka rawaxnaa kuma soo noqono magaalada wax ku dhignaa in ilaa cishaaga aan halka ku dhigno waa isbeddelaan ku taamaynay sanado badan awalan ilaahay baa mahadlay inoo suura geliyey rasuulkiisii baa maanle ilaahay baa mahadle waxaan bogaadinayaa guddidii camuudeed ka qayb gashay ama maamulaysa arrintan oo runtii aan isleeyahay intii guddiye la samaynayay waa guddigii ugu karti badnaa ee hawsha soo maray iyo hawlaha kale jaamacadda waxaa kaloon u mahadnaqayaa madaxda sharafta leh maanta noo timi kow ka yahay xaaji daahir oo cilmi guddoomiyihii boorka ilaa imika noo ah ilaa dhallinyaradiisiina muxuu ahaa heegan waxbarashada Soomaaliland isagu inoogu heliyey qalabkaa maanta halkaa maraya ee isagu inoo keenay wixii qalabkaa oo bilaash inoogu keenay iyo ciidanka dhigaya jaamacadda isagu inoo keenay waxaan mahadcelinaa Allah mahadle isaga iyo reemarodijeex caasimadda Hargeysa tii Soomaaliland ah oo isagu dadka ka wakiil yahay baanu hambalyo iyo salaan iyo mahadnaq baa ugu faraynaa isaga inuu looga gudoomo magacooda waxa kaloo deeqbixiyaasheena ka mid ah sida wax weyn loogu taray Camuud Foundation oo maxamed faarax igaar halkan waxaa jidaahir daba taagan yahay intaanu jidda gaadhin bay lacagtiisa soo gaadhay $8,000 oo jidka waxayna la joogay saad iyo aad isaga oo weliba isbitaalkan hore inoogu dhisay jaamacadda Camuudna ku wareejiyey deeqaad u ballaaran oo ilaa imika socoto uu yahay gurbajoog hay'addaas oo ilaa imika inaga hadhay gobol ahaan oo sida ugu ballaaran inoo caawiso waxa kaloo halkaas hadal ka jeediyay gudoomiyaha boorka jaamacadda Camuud xaaji daahir cilmi iyo gudoomiye ku-xigeenkiisa xaaji Idris Maxamed Sacad iyo xubno kale oo ka mid ah boorka jaamacadda Camuud oo dhammaantood u mahad ceshay dadkii taageerada ka geystay dhismaha jidkan u dhaxeeya jaamacadda Camuud iyo magaalada Boorama soo kalena waxa halkaas hadal ka jeediyay maayirka magaalada Hargeysa injineer Xuseen Maxamed Jiciil oo isagu sheegay inuu kaga qayb qaatay dhismaha jidkan qalabka wada dhismaha jidkan oo uu keenay wuxuuna sheegay inuu isagu ka mid ahaa ardaydii Camuud wax ka baratay sanadadii 1970-nadii maalintii la isku yimid fundraising loo sameeyay wadada dila Boorama ayaa anigu markii ayaa la yiri Camuud iyo wax la isku darayaa iyadana Boorama waxaan anigu taa Camuud baan ka qayb galay waxaan kaga qayb galay qalabka bariga qalab baan haysan fiican oo mashiinada waxaan haystay compressor yar iyo waxo laakiin moralka iyo niyadda baan ugu dhisay waxaan aad ugu faraxsanahay inaan markii hore sabalankaygii aan maxay ugu dhaboobay oo run noqday aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa ka qalabkii wata maxay lagu dhigay kale waxa weeye maanta kaftan baan idho waxaan idhi war qoladii meel reer galbeedku وهالشو ما حدا صار باش صار بروفيسور ما كلمة ده وكهل يقول هذا انتناه دينا ويده هو صار مركب علينا باش واحد عين كاس والله قلت ما علينا كلام ما علينا قلنا كاس الله وطلع أركي مركب الله بلا كفتم الله وأنا أدي أضبط عسني دولة وزير Hargeysa وحي كلاه سمينا سان إلا دمات كديار بيدين توحي كلاه أما حدا كالما ولي بقلبك بس قلب كان عيال معه واقع كيلومتر يبقى الدوري $8,000 أيام حدا اللي تكري قاري ضد كذا كذا مرق 4 كيلومتر ولا $10,000 يوحك بدو بيديسه في كنيسة مركا ديار بعض الله هنا قلبك عمدين محيدا يكون يقولون مر على ريم مركب محيدا النوبة تام وأنا كفر حسنا يعني سكول كي سكندري كان بحينا
infrastructure-kiisi anigoo nool aan qayb ka qaatay waxaa kaloo isaguna halkaasi hadal ka jeediyey madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Cali Faarax oo aad ugu mahad ceshay maamulka jaamacadda Camuud oo sida uu sheegay bilaabay kaabayaashii bulshada oo ay ka mid tahay dhismaha jidkani isku xidhi doona jaamacadda Camuud iyo magaalada Boorama. Camuud Foundation bay tahay laga qalab kala haday tahay maxaa Ameerika xisaab bay tahay inaan la intii gacan ka geysatay ma hadda waan jeedinayaa wax kala hambalyeynaya jaamacadda Camuud marka ay tacliintii dhaaftay infrastructure-ka inay bilowday mashruucan laami daahina iyo dariiqa wanaagsan inuu ku soo kordhiyo wax weyn tayadii waxbarasho iyo tiradeediiba waxaan leeyahay waraysiis waxaa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda Camuud Foundation Maxamuud Faarax Cigaal wuxuuna aad ugu mahad ceshay jaamacadda Camuud waxaan mahad celinayaa Allah subhanahu wa ta'ala boorka jaamacadda Camuud University odayaasha duqeyda علماء سعادة الرئيس ولي مدحوين بو هذا حاجة سعادة الرئيس عبد الرحمن دوكا مجالده البيساء أنا فارح عمر بان كبحي ما أنت فارح عمر وحب على ديار بارواي ugu dambeyn waxa halkaasi aad ka jeediyay geenka golaha deegaanka ee degmada Boorama Muumin Gadiid Cumar wuxuuna sheegay in jaamacadda Camuud tahay meelaha halbowlaha oo ah degmada Boorama waxa kale oo xuseyn ay maanta qabteen hawshii ay ka maamul ahaan degmadoodu qaban lahayd isla markaasina ay arrintan tahay mid faa'iido u leh guud ahaan gobolka Awdal gaar ahaan degmada Boorama Hashim Sheekh Cumar Good Somali Sat TV Boorama